waya helloy 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 wariyaaye wariyaaye wariyaa ilin xalayro kibraadaay helloy 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 wariyaaye wariyaaye wariyaa ilin xalayro kibraadaay helloy 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 wariyaaye wariyaaye wariyaa ilin xalayro. waa tahay saaxiibayaal ku soo dhowaada telefishinka caalamiga Somali Television Network STN. waxaan ku sugannahay hoolka Carmel ee Canabay. maanta waxaa isugu yimi dhalinyaro aad u qurux badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho, kuwaasoo u yimi barnaamij ay soo qaban qaabisay hay-adda Hiddasoor Foundation. Hiddasoor waxay ka shaqayn doontaa arrimaha dhaqanka, maadaama aynu ku badannahay gobolkan Minnesota, guud ahaana dalka Maraykanka aynu ku joogno Soomaali aad u fara badan. qol walba dhaqan ayay leedahay, si aanay carruurteenna ama dhallinyaradan u dhumin dhaqankeennii. hadday noqon lahayd afka, hadday noqon lahayd gabayadii, hadday noqon lahayd geeraarka, hadday noqon lahayd cayaarihii kala duwanaa ee quruxda badnaa. Hiddasoor waa fikraddii nimcaan hilaac. dhinaca kale waxaa kabayey abwaankeenna weyn, guddoomiyaha Hirshabeelle Maxamed ciise. waaya maanta dhallinyaradan ayaa rabaa bal codkooda inaad maqashaan. Hiddasoor ayaa isu keentay. haddii aad arki jirteen odayaal iyo dad kaloo waaweyn oo xafladaha imaada, dee generation kalaa soo baxay, waa la isbeddelayaa. maadaama generationkan ay yihiin generationkana beddeli lahaa, waxaan rabaa bal fikradooda inaan dhegaysta maanta. waxaan ku horraynayaa wiilkan dhallinyarada hor Texas ayuu ka yimi. horta khadarow ku soo dhowow gobolka Minnesota, gaar ahaan magaalada Minneapolis. maanta yaa isukin keenay? maanta waxaa isugu keenay Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan iyo Maxamed oo furay dhalinyarta talentka cusub ee Hiddasoor. waxaan leenahay ku soo dhowaada. waayahay inta kan magacay waa Maxamed Xasan oo ka socda Filanbareeri. waxaan ku tartamayaa gabay. waxaan rajaynayaa inaan guulaysto. fursadan iyo Hiddasoorna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. waa hawl qaran. waxaan leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وعلى وعلى قبل شغلة. حسيت من دونا قبل. هم كان كنت أنا كذا واحد قبل فهذا شيء أمرك. سلا أمرك شو يعني واحد كل بدنا أنا سأصير دونا قبل زوجي دونا. أروح كسر. waxaan anu ku jiri doonaa inta waydaa madadaalada soo qabanaan ku bandhiga magacay oo laakiin Soomaaliya kale u yahay ka sanka gudaheeda dhalinyarada waxaan maleeyahay jaanisiyada si tago faa'iideystaan meesha waa tartamay adiga soo tartamay muusha saaraya magacay waa Xasan Faisal. waxaan ku tartamayaa mana dhaaftumarna sheekaan inay sheekeen nimaweyne muxuu insha Allah. Assalamu alaikum. magacay Mustafa Ibrahim. inta badan dadka garanaysa Soomaaliya waxaan ku tartami doonaa insha Allah inaan heeso oo inta badan halkaas ahay. السلام عليكم. magacay waxaa waaye Anab Ismaaciil Bunti. bunti waa awooday bunti ku diidaa. maanta waxaan tartamayaa comedian ama film jilay. Thanks everyone for coming to Hiddasoor's meeting. Hiddasoor's purpose is to keep our Somali culture alive now and for future generations. As a youth in the U.S. here, we face lots of difficulties, and Hiddasoor will provide all of our needs. Hiddasoor is dedicated to empowering Somali immigrants and refugees, especially the diasporas living in the West. Our Somali heritage is one of the only things we have here in the West, and Hiddasoor will make sure to keep that alive. Let's all support Nim'an's idea of bringing our youth and community. horta aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkan. markii aad diyaariseen dadkii ugu horreeya la soo xiriirtaan ka mid ahaa, waan ku faraxsanahay inaan garabkiina noqdo. laakiin waxaa tahay lafdhabarta barnaamijkan Hiddasoor. markii hore oo aad ka fakirteen barnaamijkan, sidee bay idinku timi
adiga iyo nimcaan hilaac maxaad se u aragteen inay yaa ka faa'iidaya maxaa looga faa'iidaya yaa ka faa'iidaysan doona horta waa mahadsan tahay cawil adiga iyo cawaalax sida aad nooga qabtirteen dhanka meediyaha haddaan nahay bahda Hidasoor runtii waxaan anigii nimcaan isku keennay mar aan hadda ka hor Minnesota ku wada kulannay sidii dhanka sugaanta aan ugu daadijin lahayn dhalinyarada oo isla markaana runtii maanta waxaan ku sugannahay qurbo dhalinyaradii maanta dhalinyaro badan oo halkan ku dhalataa jirto af Soomaaligoodii liito marka Hidasoor ulay sugaanta maahan iyo dhaqanka laakiin waxa ku hoos jira af Soomaaliga mar dhow waxaan keeni doonaa in ilmaha af Soomaali aan ku tartansiino oo runtii la rabo cunugii ugu fiican af Soomaali akhrinta iyo qorista iyo spellinka ama sida ama hingaada wuxuu qaadan doonaa abaalmarin weyn taas oo ay bixin doonaan hay'adaha xawaaladaha insha Allah waayo maxamed waxaad sheegteen dhalinyaro ama caruur waalid badan baa idin daawanaya waalidku waa jecel yihiin caruurtooda meel wax lagu baro ama meel ay wax ka faa'iidayaan dhaqankooda dhinac kastaba ahaato weliba luqadda Soomaaliga aad sheegtay waaba tan ugu muhiimsan badee annaga ba hadda si wallahi noqon rabnaba oo luqadii ka sii tagayna marka ciyaalka ma wax daa ku xiran dhalinyarada idin imaan doonta muxuu yahay shuruudaha waxda kuma xirna runtii laakiin barnaamijka waa kala qaadan yihiin qaybta dhaqanka caawa hadda halkaan aan isugu keenno kale iyo sugaanta waa qayb runtii aan ugu talagalnay youthka especially summerka waa youth prevention oo runtii ah inaan mashquulino dhalinyarada ama ciyaalka da'dooda ay tahay 14 ilaa 18 dhexdooda waxaa dhinacan taagan farxiyo khaliif farxiyo bal iyar soo dhawow waay maanta waxaad ku sugan tahay howl Carmel anabay maxaad u timid waxaan u imaad inaan support gareeyo dhallinyaradeena Soomaaliyeed oo ay qabteen Hidasoor project waaya waxaa jira community-ga shaqooyin badan oo hayo qolo walbana waxay tiraa waxaan taageerinaa ama support gareyn dhallinyarada barnaamijkan muxuu uga duwan yahay dadkii hore dhallinyarada garab istaagi jirtay waa wax loo baahan yahay because ilaa hadda ma aanan arkin dhallinyaradeena Soomaaliyeed oo isku imaanayo oo raba inay ka sameeyaan ama heesaha hidaha iyo dhaqanka ama gabay ha noqdo ama majaajilo ha noqdaan caawa aadan ugu farxay inaan arko dhallinyaradeena koraayo oo waddankan jooga oo ku faraxsan inay dhaqankooda ay ku faanaan waayahay dhallinyarada marka la dhaho dhallinyaradu xaggee bay ka bilaabataa aniga adiga ma ku jirnaa maasha allah yes waa tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed aniga magacaygu waa Cabdulaahi waxaan ku magac dheerahay Baajiyo dhammaan waxaan soo dhaweynayaa Hidasoor sida aragtaan barnaamijkii u qabteen dhalinyarada Somali Talent waxaynu leenahay horaha loo wado horeyna loo socdo kulleed waxyaabo badan ayaan dhalinta ugu farxin doonaa awards baan siin doonaa Somali Talent waxaan jecelnahay fanka inay dhalinyar khibrad u soo baxaan aad iyo aad maskaxdoodu u fiican tahay waxaan leeyahay helloy 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 wariyaaye إلين حاليرو كباداي انت فين كبدن ايات كلا كورن تونتان دمان دليرada awards kodan wallahi ayaa waxa ku farxan wallo sameynaya Okay, hi everyone. My name is Asma. First of all, I just want to say thank you for everybody that came through today to this event. So if I tell you guys a little bit about Hidasoor, Hidasoor is a non-profit that is focusing on bringing our Somali culture alive for the next future and everybody here, the generation here. As a youth in the U.S., we face here a lot of difficulties. So Hidasoor will be a very good supportive program for all the youth here living here. Hidasoor is also dedicated to empowering Somali immigrants and refugees, and especially the diaspora. Our heritage is very important thing to us here living here in America. So Hidasoor will make sure that that heritage and culture stays alive here in this community. And we thank Nim'an Hila for this brilliant idea of bringing this program to the community that we all need. So I just want to say thank you everyone again for coming through. Thank you. Najib Kamil dad fara badan baa wajigiisa garanaya waa nin caan ka magaaladan Najib maanta yaa isu keenay
maanta waxaan isku keenay barnaamijka wada Nimcaan Hilaac oo barnaamij ugub ah Hidasoor waxay qabatay shaqo wanaagsan waana loo baahnaa shaqadan waayo dhaqanka wadanka kaliya oo ka kaada maaha laakiin dhalinta cusub iyo dhalinta yar ama dhalinta wadanka ku kortay ama ku dhalatay waxay u baahan tahay inay dhaqankoodii fahmaan marka Hidasoor waxay ka shaqeysay shaqo aad u wanaagsan waana ku taageeranaa waayahay barnaamijkan maxaa laga faa'iideeyaa ka faa'iideeyaa barnaamijkan waxa ka faa'iideeyaa horta community-ga dhammaan Minnesota degan iyo dhammaan gobolada Mareykanka oo dhan qof walbana wuu gaari doonaa qaarna way nagala soo qayb galeen qaarna weli nagala soo qayb galin laakiin si gaar ah waxa uga faa'iideysan doona dhalinta aad iyo aad baad mahadsan u yeeriyaa cabshiracaato marka muraayadan laga arko dad badan xusuustooda xataa way soo noqonaysaa waan ogahay kuwa badan xusuus ka tagtay way soo noqon doonaa cabshiran maanta Hidasoor baa isu kaana keentay waan ogahay Somali Television Network maxaa rabtaa inaad u mariso ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan horta horeeto u mahadnaqo Nimcaan Hilaac iyo maxamed ciise waxaa jiray ilaa waqti dheer baan waxaan raadinaynay group professionkoodu uu yahay hidiyo dhaqan ama fanaaniin ha noqdaan ama maaragtay ama abwaaniin ha noqdaan marka hadda waxaa isu keenay Hidasoor oo maaragtay groupkan isugu yimaadeen inay dhalinyarada ciyaalkeena ay baraan hidaha iyo dhaqanka marka aysan hungurin uma geenin professionkooda asaasa waxaa kaloo intaa ii dheer haddii allah uu dilo ogolaado July 2nd maxaa dhici doona wallahi July 2nd waxaa dhici doona last 2 yearskii covidka because of covidka ma dhicin Somali weeka laakiin this year insha Allah waxaa dhici doona maaragtay waxaan la aragoo la maqal iyo awilo noo host gareyn doona fanaaniin waaweyn oo imaan doonta oo maaragtay surprise ah hidiya dhaqankiyo nooc kale ah oo maaragtay original hidiya dhaqan ah iyo maaragtay iyo waxyaalo kale oo qurux badan iyo STN oo iyagana daadihin doona hormuud ka ah oo live ka ah international meel walba wariyaaye